3, 2, 1, 0. qaar ka mid ah dalalka Afrika ayaa bilaabay soo saarista dayax-gacmeedyo yaryar kuwaas oo dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya ay hawada sare u direen dayax-gacmeedyo sanadihii la soo dhaafay. dayax-gacmeedyadan ayaa dalalkan ka caawinaya xoojinta cilmi baaristooda xagga tiknoolajiyadda iyo arrimaha militariga. waxaa si xawli ah u socda tirada sii kordhaysa ee dayax-gacmeedyada hawada loo dirayo, waxaana xog lagu qoray xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha hawada iyo dayax-gacmeedyada lagu shaaciyay in sanadkan 2021 tirada dayax-gacmeedyada hawada sabaynaya ay kor u dhaafeen ilaa 7500 oo dayax-gacmeed. tan iyo markii ay dunidu ku tallaabsatay barnaamijyada dijitaalka waxay noqotay arrin muhiim u ah horumarka. sidaas darteed wadankii maanta haysta ama dirsada dayax-gacmeed waxaa hubaal ah oo la ogyahay inuu qayb ka yahay horumarka. geesta kalena markii ugu horeysay qaaradda Afrika ayaa hawada sare u dirtay dayax-gacmeedyadii ugu horeeyay in ka badan 20 sano ka hor. 44 ka mid ah dayax-gacmeedyada ayaa waxaa hawada u diray 13 wadan oo Afrikaan ah sida laga soo xigtay hay'adda ilaalinta ee Space in Africa. waxaa kaloo hay'addu sheegtay in 125 dayax-gacmeed oo kale ay horumarinayaan 23 wadan, kuwaas oo dhammaantood la filaya in la bilaabo dayax-gacmeedyo isugu jira cilmi baaris, kuwa tiknoolajiyadeed ama ciidan ayuu wax soo saarkoodu noqon karaa kuwa la taaban karo. warbixin ay soo saartay golaha dhaqaalaha adduunka ee WEF ayaa ku qiyaasaysa in xogaha hawada sare laga ururiyo ay Afrika u furi karto dhaqaale gaadhaya ilaa $2 bilyan sanadkii. dalalka Afrika ee soo saaray dayax-gacmeedyadaas ayaa bilaabay howlgelinta barnaamijyadaas si ay u xoojiyaan cilmi baarista midda tiknoolajiyadeed ama military, waxaana ka mid ah dalalkaasi oo ugu horeeya Itoobiya. dayax-gacmeedkii ugu horeysay ee Itoobiya dirsato waxa uu ahaa ETRSS-1. dayax-gacmeedkaas oo uu xambaaray gantaalka Long March 4B ayaa waxaa lahayd shirkad Shiineys ah. dayax-gacmeedkan ayaa si habsami leh ugu shaqaynaya hawada sare ee orbitka. dhammaan nidaam hoosaadkiisina waxay u shaqaynayaan si caadi ah marka la eego dhinaca waxqabadka satellite-kan. macadka sayniska hawada sare ee Itoobiya iyo tiknoolajiyadda ee ESSTI ayaa sida ay soo warisay sawir dayax-gacmeedku uu qaaday wuxuu ku buuxiyey dhammaan shuruudihii laga rabay. natiijadii ka soo baxday baaritaanadaasina waxay muujinayeen in dayax-gacmeedku uu si wanaagsan u shaqaynayo. xogaha uu ururiyey dayax-gacmeedka ETRSS-1 waxa ay wax ka tareen oo loo adeegsaday qaybaha kala duwan ee adeegyada dalka Itoobiya oo adeega beeruhu kow ka yahay. sidoo kale waxaa lagula socdaa kaabayaasha iyo dhismaha ee dalalka ka socda, sahminta khayraadka biyaha, maaraynta fatahaadaha iyo qaybaha kale ee la midka ah. hay'adda isbeddelka cimilada ee Green Fund Climate ayaa hirgelisay mashruuca dayax-gacmeedka ETRSS-1 kaasoo qayb ka ahaa mashruuca iskaashi oo lagu taageerayay wadamada soo koreeya ee Afrika. bishii Oktoobar sanadkii 2016 ayay ahayd markii qandaraaska ay wada saxiixdeen guddida horumarinta iyo dib u habaynta qaranka ee Shiinaha iyo wasaaradda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Itoobiya. bishii Maarso 2018 ayaa si rasmi ah mashruucan loo daahfuray, waxaana si guul ah hawada loo diray bishii Diseembar ee 2019. waxaase dayax-gacmeedka si rasmi ah loogu wareejiyey mulkiyadda Itoobiya bishii Maaj ee sanadkan, isagoo noqday dayax-gacmeedkii ugu horeeyay ee Shiinuhu ku caawiyo dal shisheeye ah. mashruuca dayax-gacmeedku wuxuu haatan furo u noqday dhibaatooyin badan oo Itoobiya ka haystay dhanka hawada, dhulka iyo howlaha cilmi baarista. dayax-gacmeedkan wuxuu culayskiisu gaadhayaa ilaa 65 kilogram, waxaana lagu xidhay nidaamka kaamirada ee dhererkeedu ahaa ilaa 15 mitir oo wata qalab xog ururin ah oo loo yaqaano GSD. tan iyo markii la diray dayax-gacmeedkan Itoobiya ee ETRSS-1 waxa uu dalka Itoobiya u soo hooyay xog gaadhaysa 850 GB iyo weliba 970 GB oo kale oo macluumaad ah oo loo isticmaalay in lagu xaliyo dhinacyo badan. dayax-gacmeedka ETRSS-1 waxaana shaqadeeyay oo soo saaray shirkadda Shiinaha ee DFH Satellite Company oo sidoo kale loo yaqaano xarunta cilmi baarista injineerinka ee qaranka ee satellite-ka, taasoo bixisa adeegyo dayax-gacmeed oo heer sare ah oo loogu talagalay isgaadhsiinta hawada sare ee dhanka sahanka, tijaabooyinka sayniska hawada iyo tiknoolajiyadaha kale ee cusub iyo weliba howlgelintooda. DFH Satellite waa farac ka mid ah ururka China Association Science and Technology ee KAST oo ah tan ugu awooda badan dhanka warshadaha hawada sare ee Shiinaha. waxayna nashqadaysay oo dirtay in ka badan ilaa 330 dayax-gacmeed oo kala duwan. waxay kaloo Itoobiya ka caawisay oo tababar u fidisay 22 injineero iyo saynisyahano Itoobiyaan ah
kuwaasoo la baray nashqadaynta dayax-gacmeedyada hawada sare iyo howlgelintooda. dalka labaadi waa dalka Kenya oo bishii May 2018 hawada sare u diray dayax-gacmeedkii ugu horreeyay. dayax-gacmeedka loo yaqaano CubeSat ayaa ahaa midkii ugu horreeyay ee lagu farsameeyo gudaha dalka Kenya. mashruucan oo la odhan jiray First Kenya University Nano Satellite waxaa soo saaray ardayda iyo cilmi-baarayaal wax ka dhiga jaamacadda Nairobi iyaga oo gacan ka helaya wakaaladda hawada sare ee Japan. dayax-gacmeedkan oo laga diray saldhigga caalamiga ah ee hawada sare ee Japan waxaa lagu rakibay gantaalka SpaceX Falcon 9 sida ay sheegtay warbaahinta Kenya. dalka saddexaadi waa dalka Koonfur Afrika. wakaaladda hawada sare ee Koonfur Afrika ee SANSA waa wakaaladda mas'uulka ka ah horumarinta iyo baaritaanada ka socda hawada sare. waxay kaloo wakaaladani kobcisaa iskaashiga howlaha la xiriira satellite-ka iyo cilmiga hawada sare. sidoo kale waxay dadaal ugu jirtaa inay hormariso culuumta sayniska iyadoo arday badan oo injineer ah u abuuraysa fursado shaqo iyo habka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo hawada sare. wakaaladdan ayaa sidoo kale dawladda ka taageerta sidii loo abuuri lahaa warshado horumarsan oo tiknoolajiyadda hawada sare ka saacidaya dalka. 1991 ayayna taasi hirgashay oo waxay wakaaladda hawada sare ee Koonfur Afrika dirtay dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee dalkaas. dayax-gacmeedka SANSAT ayaa laga diray saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee loo yaqaano Vandenberg. dayax-gacmeedka labaad ee Sambandilasat waxaa isna laga diray xarun lagu magacaabo Baikonur Cosmodrome ee ku tiilay waddanka Kazakhstan. balse bishii Diseembar 2018 Koonfur Afrika waxay hawada sare u dirtay SA-Cube-2 kaasoo ahaa satellite-kii ugu horumarsanaa ee wakhtiga qaaradda Afrika. ayaa ujeedkiisuna ahaa si uu la socdo ama u maareeyo xogaha la xiriira dhibaatooyinka sida dabka iyo weliba fatahaadaha ama korjoogtaynta maraakiibta ganacsi ee isaga kala gooshaya badaha. dayax-gacmeedkaas yar oo culayskiisu gaadhayo ilaa 10 kilogaram ayaa bixiya adeegyo isgaarsiineed oo casri ah oo uu siiyo Koonfur Afrika iyo dalalka koonfureed ee Afrika sida laga soo xigtay wargeyska Koonfur Afrika ee Tax Central. dhanka kale wargeyska Sasta ayaa sheegay in dayax-gacmeedkan yahay kii labaad ee ay dawladda Koonfur Afrika hawada sare u dirtay iyadoo midkii kan ka horeeyay la oran jiray ShabiSosat ama SciCube-1 oo la bilaabay sanadkii 2013 sida ay sheegtay Sasta. dalka afraadi waa Nigeria. marka lagu daro Koonfur Afrika barnaamijka hawada sare ee Nigeria waa midka ugu horumarsan dalalka Afrika. Nigeria ayaa hawada sare u dirtay ilaa 4 dayax-gacmeed iyadoo 3 ka mid ah ay weli shaqaynayaan halka midka afraad uu howlgab noqday oo hawada laga saaray. dalka shanaadna waa dalka Masar. 4 dayax-gacmeed oo gaar loo leeyahay oo uu ku jiro dayax-gacmeedka caanka ah ee Nilesat ayaa Masar dirtay intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2010. intaa waxaa u dheeraa 3 dayax-gacmeed oo ay dawladdu leedahay oo iyana hawada loo diray balse mid kaliya ayaa haatan shaqeeya. bishii Febraayo 2019 dayax-gacmeedka EgyptSat A ee loogu talagalay howlaha sahminta iyo kormeerka dhulka ayaa loo diray hawada sare. dalka lixaadna waa dalka Rwanda oo qorsheynaya inay dhawaan yeeshaan satellite-koodii labaad kadib markii dayax-gacmeedkoodii ugu horreeyay ee Rawasat uu hawada sare gaaray. dayax-gacmeedka Rawasat waxaa farsameeyay oo iska kaashaday arday wax ka barata jaamacadda Tokyo iyo koox ka kooban 15 injineer oo Rwandiisa. waxaana dayax-gacmeedkan loo isticmaali doonaa horumarinta beeraha sida laga soo xigtay wargeyska The African Report kadib markii Rwanda ay ku guuleysatay inay hawada sare u dirto dayax-gacmeedkii ugu horreeyay bishii Febraayo 2019. Rwanda waxay leedahay dayax-gacmeed kale kaasoo aan iyadu mulkiyadiisa lahayn balse ay isticmaasho waxaana loogu yeeraa laysarkiiso oo miisaankiisu yahay 150 kiilo kaasoo ay la soo wareegtay 27 Febraayo 2019 isaga iyo 5 kale oo kamid ah kuwa ay leedahay shirkadda internetka ee OneWeb oo fadhigeedu yahay UK. dalka toddobaadna waa dalka Angola. satellite-kii ugu horreeyay ee Angola waxaa la diray bishii Diseembar 2017 laakiin Ruushka ayaa shaaciyay in cilad soo wajahday 4 bilood kadib. Angola Sat-1 oo ahaa dayax-gacmeed isgaarsiineed ayaa lagu dhisay ku dhawaad 300 milyan oo dollar waxaana laga diray dalka Kazakhstan balse mashruucu wuxuu markii dambe la kulmay arrimo farsamo oo dhowr ah. shirkadda Ruushka RSC Energia oo soo saartay dayax-gacmeedkan ayaa markii dambe bixisay ballanqaad ah inay dhisto mid ka awood badan kii hore waana midka hadda ay haysato ee Angola Sat-1.
dalka sideedaadna waa dalka Morocco dabayaaqadii 2018 dalka Morocco ayaa dayax-gacmeedkii labaad ee qaabilsan hawlaha sahminta iyo indhaynta ee lagu magacaabo Maxamedkii lixaad B ayay yeelatay waxaana dayax-gacmeedkan ay Morocco ka riday garoonka hawada sare ee Guinea ee Faransiisku maamulo iyadoo la kaashanaysa shirkadda Faransiiska ee Ariane Space dayax-gacmeedka kale ee Maxamed 6A oo ahaa kii ugu horeeyay ee dalka lagu sameeyo ayaa sanadkii 2017 laga diray magaalada Kourou ee dalka Guinea gantaalka qaaday dayax-gacmeedkan waxaa lahaa shirkadda Airbus Defence dalka sagaalaadna waa dalka Algeria oo kamid ah dalalka Afrika ugu firfircoon xagga tiknoolajiyadda hawada sare iyadoo haysata 6 dayax-gacmeed oo ku gaaf wareegaya dhulka dayax-gacmeedkii ugu dambeeyay 2017 ayay wakaaladda hawada ee Algeria ay hawada sare u dirtay nooca isgaarsiinta ee ah Alcomsat 1 iyadoo kaashanaysa dawladda Shiinaha Alcomsat 1 wuxuu shaqadiisa bilaabay 2018 wuxuu shabakadiisa ku taageeraa baahinta TV-ga dalka wuxuu kaloo bixiyaa isgaarsiin ballaaran oo tayaysan oo ka caawiya dhanka waxbarashada adeegyada dawladda ee elektarooniga ah iyo adeegyada kale tan iyo bishii Sebtembar 2016 Algeria waxay dirtay 3 dayax-gacmeed oo kala ah Alsat 1B Alsat 2B Alsat 1A waxayna haatan haysataa ilaa 6 dayax-gacmeed dalka ugu dambeeya ee tobnaadna waa dalka Ghana satellite-ka ugu horeeyay ee Ghana yeelato waxa uu ahaa Ghana Sat 1 waxa dayax-gacmeedkan 2017 soo saaray ardayda wax ka barata jaamacadda All Nation University ee magaalada Koforidou ee dalka Ghana dayax-gacmeedkan waxa ku baxay lacag dhan 500,000 waxaana mashruucan oo guuleystay Ghana gacan ka siiyay oo taageertay wakaaladda hawada sare ee Japan oo iyaduna gacan ka geysatay dayax-gacmeedkii ugu horeeyay ee Kenya yeelato